wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka waramay safar shaqo uu ku maray dalalka Masar, Itoobiya iyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. wasiir Saad wuxuu faahfaahiyay waxa uu Soomaaliland uga dhignaa safarada uu ku soo maray dalalkaasi isla markaana tilmaamay ahmiyadda uu lahaa safarkii uu ku tagay dalka Masar oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalka Masar. wasiir Saad wuxuu faahfaahiyay qiimaha uu Soomaaliland u soo kordhiyay safarka uu ku tagay dalka Masar. intii aanu joognay Masar waxaan la kulanay wasiirka tacliinta hoose, wasiir ku-xigeenka tacliinta sare, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, gudoomiyaha guddida baarlamaanka u qaabilsan Afrika iyo wasiirka khaarijiga iyo ku-xigeenka agaasimaha macadka maxaan ilaa Azhar isna waanu saragnay intaasna soo aragnay. waxaanu ka wada hadalnay intaba amro arrimo yani labadeenaba inoo dana oo inoo dhaxeeya oo si markii hore aan u sheegay ay ka mid tahay arrinka waxbarashada iyo tacliinta. waxaanu ka codsanay inay macallimiinna siiyaan deeqa waxbarasho hawlba ay siin jireen inoo kordhiyaan, in jaaliyad baynu ku leenahay halka Masar degan oo badan dhalinyaro ardaya qaar badan baa runtii aan haysanin fursad ay wax ku bartaan inay fursad iftigooda ay siiyaan. waxaanu ka codsanay inay wax nagala qabtaan dhinaca caafimaadka, dhakhaatiir inoo soo diraan, qalab ina siiyaan, dawooyin ina siiyaan, isla markaana dadka reer Soomaaliland doonaya in caafimaad ay u tagaan Masar ay u fududeeyaan oo baasaboorkeena ay aqbalaan, isla markaana mataqaana ay visa ay siiyaan oo ogolaadaan. intii aanu joognay si wanaagsan ayaa runtii naloo soo dhaweeyay. waxaa waftiga la siiyay protocol runtii dhammaystiran baa la siiyay markaan diyaaradda ka soo degnay ilaa iyo markaan fuuleynay. waxaan doonayaa inaan fursadan ka faa'iideysanay halkaan runtii uga mahad celiyo maxaan idhahdaa wasaaradda khaarijiga gaar ahaan sidii wanaagsaneed ee noo soo dhaweysay. fariinta ugu horeysa waxay ku socotaa wadamada IGAD. sawla socotaanba bisha 13keeda shir baa ka dhici doona IGAD ay ku leedahay magaalada Muqdisho sidoo imka qorshuhu yahay. fariintan runtii waxay ku socotaa IGAD. waxaan doonayaa in halkan ka cadeeno in wadanka Soomaaliland uu yahay wadan xora oo kamida wadamada Geeska Afrika oo kamida bahda maxaan idhahdaa wadamada IGAD oo dadkiisuna ay xaq iyo xuquuq ay ku leeyihiin IGAD oo loo baahan yahay xaq iyo xuquuq ay ku leeyihiin in la siiyo. maxaan idhahdaa xaq uu leeyahayna in la mariyo, isla markaana in qadiyada Soomaaliland ay kamid noqoto qadiyadaha ajendaha ugu jira ee hor yaala wadamada IGAD sida imka qadiyada South Sudan bay ugu taalo ama qadiyada Soomaaliya bay ugu taalo oo aad iyo aad ay muhiim tahay in arrinka Soomaaliland ay ka hawlgalaan wadamada IGAD xaqooda laga siiyo. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire wuxuu kaloo ka hadlay martiqaad uu ka helay wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo kulamo la yeeshay iyo kor u qaadka xiriirka soo jireenka ka dhaxeeya dalka Itoobiya, isla markaana ay dawladda Itoobiya ugu deeqday Soomaaliland 115 arday oo deeq waxbarasho ah oo dawladda Itoobiya siisay Soomaaliland. waxaan u gudbay wadanka Itoobiya halkaas aan kula kulmay wasiirka khaarijiga ee wadanka Itoobiya. socdaalkaas runtii wuxuu ka dambeeyay codsi anigu aan ka codsaday in ballan layga sameeyo wasiirka khaarijiga. haru waxaan u arkay wasiiru laba wasiiru dawlad wasaaradda khaarijiyada ka tirsan laakiin isaga ismaana arkin. ujeedaduna runtii waxay ahayd inaanu isbarano isla markaana inaan ka wada hadallo amuro labada dal ka dhaxeeya iyo sidii xiriirkooda loo hagaajin lahaa. si ay ogtiinba wadanka Itoobiya waa wadan aanu jaarnahay, wax badan ay naga dhaxeeyaan, dad iyo dunyo iyo dhaqaale bay naga dhaxeeyo. marka sidii loo xoojin lahaa mataqaana xiriirkeena ayaanu ka wada hadalay. si wanaagsan uu noo soo dhaweeyay wasiirka khaarijiyuhu. horta waanu ka codsanay inay noo kordhiyaan. waxay sanadkan leena siiyay 115 deeqood oo waxbarasho, 100 deeqood oo ah undergraduate-ka iyo 15 ah maxaan idhahdaa postgraduate amba marxaladda labaad ee jaamacadda. runtii aad iyo aad baan uga mahad celinay dawladda Itoobiya deeqda ayna siisay. waxay taas tusaale u tahay oo xaqiijinaysa cilaaqaadka runtii qotada dheer ee labadeenaba naga dhaxeeya. wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale wuxuu ka hadlay xorriyadda saxaafadda oo uu tilmaamay in uu dastuurku u damaanad qaaday saxaafadda inay tahay wax ka mid ah waaxaha dalka ka jira, isla markaana talooyin u soo jeediyay qaybaha kala duwan ee warbaahinta. dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah ee dhisma dawladeedka Soomaaliland waxay u dhigantaa dawladda iyo baarlamaanka iyo
qaybta cadaaladda axsaabta saxaafadda waa tiirarka runtii weeye ay ku taagantahay dimuqraadiyadda iyo degenaanshaha Somaliland constitution-keenu amba maxaan idhahdaa wuxuu siinayaa xornimo siinayaa saxaafadda inay saxaafaddu xor u tahay in iyadu ay mataqaanaa ay cabirto fikirkeeda dadkuna ay ku cabiraan fikirkooda nidaam baynu leenahay marka de sharci marka waa yani ma dhicin I hope inaanay dhicin in lagu tacadiyay xaqa uu leeyahay ninka suxufiga laftigiisa de waajiba ayaa lagu leeyahay waajiba saaran ay tahay inuu xaq baa lagu leeyahay inuu ilaaliyo mas'uuliyad buu saaran in de runta laga sheego wax walbaba marka siyaasadda dawladdu waxa weeye amba siyaasadda qarankeenu waxa weeye saxaafaddu inay madax bannaanaato inay xaq u leedahay inay fikirkeeda cabirto in shicibku fikirkiisa uu ka cabirto taa weeye dabcan wax walbana dee xad beelan xadkeedana ilaaliso وحسن فارح كمان عبد عمر جبريل تلفزيون كقرن كسوماليلاند وزارة arrimaha dibadda magaalada Hargeysa